ninkii sirkhaanka ahaa. nin cabtoy ah oo sirkhaan ah ayaa waxa uu soo maray meel waddo ah oo shil gaadhi ka dhacay. dhaawaca iyo meydkuba goobta way daadsan yihiin. kadib waxa uu arkay nin dhaawac ah oo ay gacantu go'day oo qaylinaya oo leh alla gacantaydii yeey. ninkii cabtoyga ahaa ayaa la yaabay. waxa uu ku yidhi, waar aamus doqon yahow, bal eeg ninka halkaa yaalla madaxa ayaa ka go'ay, haddana ma ooyayee is adkeeniyahow. markaasay dhaawicii iyo dadkii meesha wada joogayba hal mar wada qosleen. godkii tuulada. tuulo ayaa dadka ku noolay dhammaantood ahaayeen doqmo. tuulada waxa ku yaalay god. godkan habeenkii dadku way ku dhacaan iyaga oo aan arkaynin. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxgaradkii tuulada oo ka koobnaa 3 qof ay ka wada tashadeen arrinka godka. midkii koowaad ayaa yidhi, waa in aynu iibsannaa gaadhi ambalaas ah si uu dhaawaca markiiba u qaado. midkii labaad ayaa yidhi, maya waa in aynu dhakhtar ka agdhisnaa godka si dhaawaca markiiba loo daweeyo. midkii saddexaad ayaa yidhi, maya dhakhtar cusub dhisi mayno, gaadhi cusubna soo iibsan mayno, waxaasoo kharasha isgelin mayno. waa in aynu dhakhtarkeennii aynu hore u lahayn agtiisa god ka qodnaa, kanna aynu aasnaa si markiiba dhaawaca loo daweeyo. cuntadii jaarka. nin ayaa xaaskiisa ka cawday. waxa uu u tegey oday waaye arag ah, waxaanu u sheegay in ay xaaskiisu qaxar badan tahay oo mar walba ay ku qayliso. odaygii ayaa kula teliyey in uu xaaskiisa mar walba ammaano. maalintii dambe ninkii oo shaqadii ka soo rawaxay ayaa arkay in ay xaaskiisu u diyaarisay qado aad u wacan. iyaga oo qadadii wada cunaya ayuu is yidhi, bal waa jaanise ammaan imika. waxa uu ku yidhi, xabiibti aad ayaad u mahadsan tahay, weligay cunto tan ka macaan maan cunin. islaantii ayaa inta ay xanaaqday ayay weelkii iyo cuntadiiba ku saydhisay. markaasay ku tidhi, adoo weligaa aan i ammaanin ayaad maalinta keliya ee aan cuntada jaarka kaaga soo qaaday i ammaanaysaa. ardaygii saaqidka ahaa. arday saaqid ah oo aan waxbarashada ku fiicnayn ayaa saaxiibkii ku yidhi, marka aad dugsiga tagto ii soo sheeg imtixaankayga. haddii aan maaddo dhacay waxaad igu tiraahdaa hadhow cali ayaa ku soo salaamayey. haddii aan 2 maaddo dhacayna waxaad igu tiraahdaa 2 cali ayaa ku soo salaamayey, si aanuu aabbahay u fahmin in aan dhacay. saaxiibkii ayaa dugsigii ka soo noqday. markii uu gurigoodii yimid ayuu ku yidhi, saaxiib, dhammaan ummadda reer cali ayaa ku soo salaamaysay.